السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وهذا سلامتي إسلام كان يكون سلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علنك هو علنك الصومالي وي داس بلو بلاك محوها بلو فلاج اوف Somalia. meeshaan seexdo korkaygu saaraya waxa ugu dambeeyo habeenkii markaan seexanayo leedka damiyo waxa ugu dambeeyeen arko waa calanka ummadda Soomaaliyeed ee buluuga ma sha Allah ilaahay waa iga qaadin ilaahay calankayga hayga qaadin ma sha Allah soo dhawaada meel walba caalamka joogtaa waa waaska duqbalow haa kablow faarax walaalkiis macawkii ka yaraa bashir ballan matanaayeen xasan gor saaxiibkiis qarashow dariskiis ku noolaa rawna garsay ku saaha bakaja لقتي مع السورية بنا وين شنطة بقى بقوري بسم الله الرحمن الرحيم. صياعة وسود وهذا وركي ودم بي وطان جمعها بلانسانين أنا يقول ما شاء الله يمسوق اللايف وان حملني وان أرد ياديات شيخ كيابي وحويري شحات كإسكاد داية شحات كنت إسكاد ديسان لمسي عالم كسوانا داسا وعلنك بلوغ Soomaaliyeed weey marka ugu dambeeyso ee aan seexanayo in ducadeyda akhristo ee light-ka daminayo waxa ugu dambeeyay korkay ka dulbabanayo indhahaygu way qabtaan ee aan arko xaga meeshan seexanayo waa sararta seexanayo ma garataadiyad waxa ugu dambeeyay arko indhahayga qabtaan waa calanka buluuga Soomaaliyeed cid walba calanka ku faanayso cid walba calanka aaminsan walaalaan nahay إهل بناي أرحن نواناي ما شاء الله قوليستا أنت عالك كروهيس أنت علامة ما مول قبل هذا يعالك إثيوبيا يعالمة وضب هذا كله كروهيسو ولكن يليه المسو جاري شان قروح ذا يا شرفت يا عزة قولية أبيال باوصل انتي هو يوم باوصل انتي هذا الريال بام قرر ساي وصل دعوامي دقال علوس بالله سوقلي ما شاء الله سود وهذا ما شاء الله سود وهذا ووركي قدام بيجي إلا يساكا إلا يحلي تلفون من كجرو وعي الله هذا لين على ديان كسمارة ذا إثيوبيا يجيجا يدي سوا نهارت فيسبوك نول بفكر كيسو ديبتا قلول با فكر كذا ديبتا وصوغ شا تلفون كإنترنت كان يدا يسكب حسو ويسوفري ستا وحيرك هذا شا وح أيضو يجعش هاي وح أما أسقى وجعلي هاي أما أيضا يجعش هاي بينتي لسه فريستو يدم عضاير يبرها بالشدة كوسو قدبس ويل كيار كذا ركتان دقبلوا اللي يري هذو ويل كيار كذا ركتان دقبلوا اللي يري هذا ما شاء الله أسقى أنا ضد كاسو كم بدي هاي وحبي يودي كاري ذي كل شعب كاسو كمدي هاي ما شاء الله هذيات ورادي شيء فكر كيسة سوق بسنيش وحنا هذا تاجرين هذا جعل هاي وحاوي وعلى كبلوق الصوماليات حاجة يسارن بنادو جعل هاي قبيل لك وشقية قبيل هدان ما أنت هدي قبيل وحن كجعلاني رقبة ذنب ما أنت دوريلها هذيات وحنا أنا شخصيا opinion كيجا إن أنا وأمي سنة هاي يام بيج كيجي يام قرر ساي لايف كيجا لا سوقلا ومدنا لو ذاك هذيات dad bay dhibaysaa dad baa dhibtoonayo dad baa ma garanaysaa xanaaqayo dad baa dhiikar ku dhacaya sukar waxba ay sukar idin ku dhicin waxbana ay dhiikar idin ku dhicin dhageyso hadaadan dhageysan karin iska dami iskaga bax ma sha Allah waxa intaas dhaafsiisan waxa weeye waa faduul weeye aniga kuguma mashquulo adigu haygu mashquulin inaad armaani ama inaad adeeray macaanto adigu shakhsiyadaada kuma mashquulo laakiin adigu haygu mashquulin aadiyad haddii aad dhibsatid waxa uu duqbilow ka sheekeeyo iska dami telefonka iskaga bax meelaha kale aad ileen Facebook 200 qof baa live ku jirto daawaraysaadiyad halka markay maraysa ma sha Allah halka kaga tago dad badan oo anigu intaanan galin warbixinta iyo xabsi guriga la galiyo ninkii Mustafa Agdar intaana galin aan warbixintaasi aanan saa u soo sayrin yaa rabaa waxoogo yar balnaasho war anigu Facebook qabiiliguma hayo reernaguma hayo telefonka ana biilka iska bixi data iga qasarto maalin walba anigu balwad ii noqday ma ogiye kala midba hooyaday caayriya fiiri meesha
adiga hooyada iyo hooyada waa isku mid maxaad ku caayaysaa hooyada anigu aad iyo aad hooyada iyo hooyada waa isku mid weeye magaraysaa sida hooyada aabbaha ugu tagay habeenkii ula raaxaystay eed u dhalatay banana u dhashaadiyad wax hooyo la caayo meeshan waxa weeyaan waa foodo weey ilaan waa ardaa khaldan buu ka soo kacay baan filaya u fiirsada Soomaaliyeey waxay yiraahdaan dad badan oo fara badan oo ugu dhagan bad arkaysaa Facebook caayay ama magaca duqbilow credit ku raadinaya ama view ku raadinaya arkaysa soo gashanaya uu soo qoranaya wuxuu leeyahay duqbilow waa noocan duqbilow af Soomaali ma yaqaan duqbilow waa kan ما لا تمادد أنت الضقبلة ويلك لانديره إلهي كده جاي صدق الوقت كتاجن أنت أوراه ذا يفكر كأولي من هذه وقتكم مشغولة يصير ما لا إماتت فكرات هذه وضدكم يكون جاي يستانك يكون داودان إلا أنا نقول يبين واحد تابع أنا برتها صاقله أو مجرد شيء وما ضل شيء يستو برتها كوجد بيا فكر كي حد ضقبلة ومشغولة يصير وخالد وي مرك أنت عشان كي يوجد بيا أنا وأفير صدق أنت الداوضة أم أنت إلى سعتي noloshiina ma arkaysaan anoo shakhsi ama qof Facebook soo galo magaciisa intaan ku qorto caayay ama dhahaysaan weeyaan wuxuu yahay waxaan ka hadlaa siyaasadda Soomaaliya wareersan kolba dhinac u socotaan ka hadlaa anigu ninka aan ka helo ama siyaasiga aan taageero ama siyaasadda aan taageero yaan isku dayaa wixii igu raacay inay igu raacaan dad baa dhawaaqi dad baa qayli muxuu yiri bay kulay waraafkan ma qaban kartaan afkan duqbilow wallahi badan qaban karnaadiyad halka markay marayso yaan bambayaanay igu dhiga waxa weeyaan aad waa runtii mar af Soomaaliga uu igu yar istaaga laakiin idinku istaaga waan banaani waan ka gudbaya macnaha waan fasiraya waxaan u fasirayaa sida ay tahay waan dhigdhigayaa xabad baan u dhigdhigayaa waan fahmaysaan insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo ninka la yiraahdo Axmed Shide waa mas'uul Soomaaliyeed weeye waa wiil Soomaaliyeed weeye hooyo Soomaaliyeed baa dhashay aabba Soomaaliyeed baa dhalay heerka iyo darajada uu maanta joogo wuxuu ku gaaray aqoon buu ku gaaray taxan baa la iska qaaday imtixaankii digriigi uu sareeyay buu qaatay sidaasay dawladda Itoobiya ku juus garaysatay ee ugu dhiibatay maaliyadda waa nin bartay financialka iyo economic bartay weey sidaas ay ugu dhibtay ma sha Allah shalay taragii laha waa laandheere ee laha waxa weeyaan waa haliyay laha yaa maanta caayay oo baraha bulshada ugu jiro qabiil bay isku raaceen qabiil bay isku arursadeen waxay rabaan muwaadin Soomaaliyeed inay qabiil ku takooraan socon mayso oo duqbilow ka dhaadhicin maysaan awoodda asagay la jirtaa Ilaahay ka sakow awoodda asagay la jirtaa halka markay marayso waan istaajinayaa ma aadayo adisaba wanaadi doonaa jigjigaan dib ugu noqonaya garaadkaygu garaadku dhalay ee garaadka ummadda Soomaaliyeed ee deegaanka Soomaalida Itoobiya degta garaadka ugu sareeyo yaa idaacadda ka hadlay garaad siyaasadda inaad ku milantid oo group la jirsatid waxay dhaawacaysaa sharaftii ummaddu ay ku haysay waxay dhaawacaysaa dignitigii Soomaali weyn ay ku qabtay baabaha noqonayso garaadka xanaaqsan iyo ka xanaaqsanayn iyo ka wasiirka iyo kan wasiirka ahayn waxaad u wada tahay garaad baad u tahay ma aha inaad wiil yar oo si laalaado oo hadda xabsi guri ku jiro inuu intuu guri kula galo ama ku dhihi maayo la garaadkaygii baad tahay ku dhihi maayo lacag baad qaadatay laaluush baad qaadatay marnaba ku dhihi maayo afkaygana soo mari mayso lama rabin inaad degdegtid oo idaacadda soo fariisatid oo aad tiraahdid Axmed Shide waa tuug Axmed Shide waa noocan Axmed Shide anaga nama matalo Axmed Shide waa sidan oo aad u eexatid mid lagugu tirinayo la leeyahay waa isku beel la leeyahay lagugu tirinayo inaad u eexatid ma ahayn waa garaadka iyo oday dhaqameedka siyaasadda kuma milmaan garaadka iyo oday dhaqameedka iyo waasyada iyo garaadyada kuma milmaan siyaasaddu dhaxdhaxaad bay ka noqdaan ka siyaasiga iyo kan siyaasiga ahayn iyo shacabka magaraysaa darajooyinkooda kala sareeyo waxay u wada yihiin garaad bay yihiin garaad idaacaddii afka ku hadleysay maamulkan jigjigo ee fadhiidka afkeedii ku hadleysay yaad mikrofoonkeedii soo qaadatay ummaddii way ku daawaraysaa shacabkii Soomaaliyeed baan ka mid ahay ummadda Soomaaliyeed afkeedii baan ku hadlayaa waxaanu dareennay inaad la jirsatay inaad taageertay
inaad dhinac la martay wiilka aad ilmaadeerka tihiin waa goori weeye amba ilmaadeer baan nahay laba jira laakiin cadaaladdu iyo xaqu weligay kama leexan daraad markaan live-ka ku jiray waxaan idinku idhaanoo duqbilowe jimcaha waa la kala baxayaa baan idinku idhi jimcaha maalinka ay tahay maalinta jimcaha waa la kala baxayaa bur iyo biyaa loo kala baxayaa ka baawarka laya ka baawarka aan lahayn yaa la kala ogaan doonaa waxaa la kala ogaan doonaa oo idaacadaha iyo aad arki doontaan baan idinku idhi ninka dembiilaha ah iyo kaan dembiilaha ahayn maalintaan hadlayay bartan ka hadlayay waxaan idhi ninka Mustafa Cagjar la yidhaahdo waa madaxweyne weeye sharaf buu iga mudan yahay cizi buu iga mudan yahay shakhsiyadiisa ku xadgudbi maayo waxqabadkiisu waan aragnay waxqabadkiisu wuxuu noqday aargoosi uu ka aargoosanayo jifada gandeegaanka Soomaalida waxqabadkiisu wuxuu noqday madaxweynihii asaga ka horeeyay meeshuu fariisan jiray inuu kaamera u qaato oo uu yiraahdo bartan buu cabdi fariisan jiray kaamera intuu qaato gurigan buu deganaan jiray kaamera intuu qaato halkan buu seexan jiray yay shaqadiisii noqotay Etoobiyana way aragtay deegaanka dadkii deganaana way arkeen bal hadalkayga aad u dhagaysto halka markay marayso Mustafa Cagjar waxaana Etoobiya dhaqan u lahayn waxaanan deegaanka hore looga baran iyo ummadii ku soo kordhiyay waxaa la rabaa edeb darradaasi iyo dhaqan xumada in laga joojiyo lagu wada hadlay kow wuxuu sameeyay inuu jawaano intuu qaato in qabriyadii uu faagto lafa 200 sano ka hor dhintay oo waasiye garaadye in qabriyadoodii uu soo faaqdo uu lafihii la soo baxo bal lafihii jigjigay ka buuxaan asagina xabsi guri buu ku jiray xaguu laadi doonaa say u taala meeshu lafaha geyn doono halka markay mareysay dacwooyinkaasi ay isugu yimaadeen yu maalin dhaweeta khaldamay wuxuu sameeyay dastuurkii u yaalay dawlad deegaanka Soomaalida Etoobiya ee lagu heshiiyay ee xisbiga ku dhisnaa yu ku xadgudbay baawar abiyus buu sameeyay waxa cabdi lagu qabsaday ee xabsigu maanta kaneecada ugu cunayso waa baawar abiyus sameeyay weey xildhibaan wasiir gudoomiye iyo dad xasaanad laha oo siyaasiyiin oo aqoon-yahano leh oo jigjiga ku noolaa iyo xari kala wada daalay ninkii asaga ka horeeyay waxaa lagu haystay baawar abiyus baad sameysay siyaasiyiintaad xirtaa uqaashaad xirtaa baa lagu haystay Mustafa Cagjar 2 maalin gudahooda dastuurkii buu ku jibiyay dambiyadaas oo dhan baa lagu hayaa halka markay marayso daraata markaan hadlayay waxaan idinku iri Mustafa Cagjar jimcaha hadii looga yeeri waayo Mustafa Cagjar hadii jimcaha looga yeeri waayo magaalada Addis Ababa tuqbilow ha dhageysanna idinku iri xalay markay ahayd Afrika xalay hadda anagu maalin bay noo maraysaa aan idin tuso maalin bay maraysaa maalin qorraxda halka taaganta laakiin qabowgu waa minus weeyo qabowgu waa aad buu u sareeyaa qabowgu waa minus marmaran aad buu u qabooyo jaakadii waxbaan wataa halka markay marayso yaa waxaan idinku iri Mustafa Cagjar maalinta jimcaha hadduu Ilaahay yiraahdo jigjiga looga yeeri doonaa hadalkaygii buu dhageystay hadalkaygii bay dhageysteen way boodboodeen awoodaysan lahayn bay isu sheegeen markaasay idaacaddii soo fariisteen markaasay yiraahdeen nin mas'uul oo wasiirkii maaliyadda dalka Etoobiya waa wasiirkii maaliyadda dalka Etoobiya iyo gudoomiye xisbiga ee asaga laga marqaadanay iyo inta idaacadda yaraade afka idaacaddan halka igu bal Axmed iyo Mustafa halka igu war idaacaddan yar ee TV la yiraahdo aniga waxaa furnay Ibrahim Carab baa furnay war Ibrahim Carab maqlaysa iyo TV-ga la idin sheegayo ee idin wareeriyay ee marna aaba Cabdi oo ku hayay marna aaba Mustafa ku hayo ee idin wareeriyay maskaxdii ay ka soo maxatani Ibrahim Carab waxa guriga qiiq weynaa fadhin Ibrahim Carab aniga Ibrahim Carab khuuriye guriga qiiq weynaa fadhin maalinta naqshadeeda dajinaynay ee Cakaara deegaanka dhanba Cakaara News bula Cakaara News wax la yiraahdo oo website cakaara.com la yiraahdo yaa afkeeda ku hal jirtay markaan Cabdi la fariisanay waagaan qayili jiray weey waagaan qaraabada cuni jiray weey yaani aniga Ibrahim inta fariisanay yaan ku iri adeer macaana TV sida Universal oo kala wayna siideena ku baashi annagu aan sameynay yaa laga dhigayaa freedom of speech iyo idaacad baa la sameeyay war TV qiiq weyna waa taqaanaa reeminaya bulsho qiiq weynaan maskaxdeeda ku dajin annaga shiil idaacadda ayada ahayd yu Mustafa Cagjar soo dirayo magaaladii bay wareegtay shacab la qasbayo shacab dharbaxa ka baqayo shacab in la xira ka baqayo yaa mikrofoonka loo geeyo waxa la yiri yaa taageertaan markii Cabdi u dhacayba sidaa bay lahaayeen isla TV naftirkeeda mikrofoonka salay wadeen yaa dadka loo geenayay oo la lahaa aaba Cabdi leh aaba Cabdi naga daba dheh aaba Cabdi kii umba salay koobi gareysano daba gasheen
halkaa markay marayso idaacaddaa waxaa laga soo yidhi mustafe wuxuu yidhi ha yimaada waxaad barateen bay yidhahdeen bal halkaas waxaad barateen inaad dhisaba la isaga yeeree mustafe wuxuu yeerayaa axmed siduu u yeerayaa yaa loo yeeray ugu dambeyntii yaa loo yeeray ugu dambeyntii waxaa loo yeeray mustafa cagjar baa loo yeeray adisaba lagu yeeray halkaa markay marayso hakadii geli qufulna ku qabo adisabagii marka adisaba waa la wada fariistay xisbigii dawladdii federaalka ra'iisul wasaarihii dalka waxaa la soo hordhigay caddeemo sax sidii cabdi loogu qanciyey abiye yaa mustafana loogu qanciyey bal hadalkaygaad u dhowso deegaanka waxaa la soo saaray oo la keenay wadaadda dacwoonayo wadaadadii oo loo kala exday wixii koonfurta Soomaaliya ka jiray oo la geeyay jigjiga hadalkaygaad dhageysto waxaa la yiri Mustafa Cagjar argoosiga ku jiro argoosiga uu sameynaya qabiil wuu dhaafay dalka wuxuu gacanta u galayaa baa la yiri al-shabaab bal noo cadeeyaa lagu yiri wadaadda dalka ee Soomaalida galbeed ee ogaadeen loo yaqaan xerta kitaabada akhriso waa xer la yiraahdo suufiyada ama al-sunna wal jamiica saad u taqaanaan kuwaasa quraanka akhriyo awoodana kuwaasay ku hoos kareen aabayaasha kuwaasay ku hoos kareen waan wada ognahay qof walba dhulka ogaadeynaya ka yimid wuu ogyahay xerta suufiyadan ku hoos karno quraanka nabartay halka markay marayso Mustafa Cagjar xukunkii markuu qabtay waan ka dhawaajinayaa waana sheegayaa al-ittixaad al-islaax ayuu gacantii u geliyay maxaa ka jira qabri dahar maxaa ka jira dhagax buur maxaa ka jira jigjiga wadaadada intii loo taga suufiyada ahaa yaa la leeyahay masaajidka iska soo wareeji furihiisa waxaana loo nasbirayaa oo loo danaaninayaa oo la leeyahay waxaad u nacamleyn jirteen wadaadada suufiyada cabdi maxamuud cumar baa wuxuu xiri jiray baa la yiri al-islaax iyo al-ittixaad buu xiri jiray baa la yiri bal hadalkeedus wadaadadii Itoobiya yogeed wadaadadii deegaanka kitaabka ku akhrin jiray wadaadadii culimada ahaa oo dhan yoo la wada og yahay oo taariikho diiwaan gashan yaa la og yahay oo la socdo yaa waxaa la keenay al-islaax al-ittixaad al-qashuush al-shabaab iyo waxa loo garanay bal hadalkeedus odayga suufida ee tibadheerta ahaa ee tusbaxa watay ee qabri dahar kitaabka ku akhrinayay ee masaajidka fac lagu yaqaanay yaa Mustafa Cagjar wuxuu soo dirayaa shaaliqe waxa la leeyahay wadaadkii furaha soo wareeji كسولي مساجد كان أبيس بكتاب كأخرني حرت وحرت النذي أنا مساجد كتاب ما هي مساجد كسورج وضياشي سوفيا ودم بالله وذا حرحري وحال الله وذاركي رجال شبابها رجل عملين جري رجل سعودية كيمد رجل سوفن جري رجل ربينا قرح يكردان جيجو رجل أوجي هاي الله الصعد يا الله وذا دي جيجي يميلوا البيت ومركل اللي هاي ودنكي وحاقب صدى أورورا على الشباب مركل قوليه تاوي odayaadii suufiyada ahaa ee wada naqaanay habar eedo waxa weeyaan xilkii waa laga wadoriji dacwada koowaad weeye talabaad iyo tasaddexaadna dastuurkii deegaanka u yaalay ee lagu dhaqmayay ee xisbiga uu ku kala socday ee xaroosaadka ahaa Mustafa Cagjar uu ku xadgudbay awoodda labada maalin uu heystay asoo ka faa'iideysanayo madaxdii wada xiray dambiyada lagu haya taawi Mustafa Cagjar awood buu isbaray dhagahay wax ugu sheegaysaan hore idinku sheegay dhagtay wax ugu sheegeen waxay ku yiraahdeen annaga aan alif annaga reer hebel annaga ku difaacin ninka dirban ka dhigeena war deegaanka Soomaali baa wada degan deegaanku Soomaali baa wada degan beenyan umada laga dhaadhicin yaana orkacsi beene umada lagu kala jibin dir ya daarood hawiye raxaweyn cid walba deegaanku way degan tahay cid gooni u leh male ha lagu kala badnaado nimanka habsama majority aadan laakiin deegaanku waa la degan yahay la iskama xigsan karo la iskamana garbin karo la iskumana jujuubin karo adeer meesha Soomaali baa wada degan dir waa Soomaali haduu dir yahayna waa rag Soomaali oo nolol dhashay oo barta degan weeye idinka yeeli mayno inaad maalin bakaarka aad wadataan annagu aan marisaan oo nagu socdo dhikalayn baan niri diidnay dir la dagaali mayno dir cusuriyeen mayno dir fiijin mayno dir la dagaali mayno dir waa dadkanagi dir waa Soomaali wax Soomaali ka yarna nama deeqda dir macaan Mustafa Cagjar wuxuu yiri kuwii cabdi way tageene hadda aan kaarka bedelo warkaa kii Soomaaliya laga leeyay war halka markay marayso bal halka diigeliye adisay oo xir istaagay ninkii Mustafa Cagjar ahaa jigjiga fadhiyay awood isbaray
ee odayaasha aniga garaadkayga in la qasbay baan u malaynaya marnaba dhihi maayo garaadkayga lacag baa la siiyey marnaba afkayga soo marin maayaanoo duqbilow hadalladii maanta gafka ahaa ee ku hadlay ee barakicinta ahaa ee qoomiyadaha la isku dirayey ee dirya daarood iyo dirya absame iyo dirya ogaadeen la isugu dirayey maanta waxaa weeyaan anigu waan diiday dhikalaan bayri dhihi maayo waa garaadkaygii iyo waaskaygii bartaa fadhiyey lacag baa lagu shubtay dhihi maayo waxaana aaminayaa sidii cabdi uu dadka qasbi jiray ee ayaga u yidhaahdeen cabdi baa dadka qasbi jiray in garaadkaygii la qasbay baan aaminsanaa garaad ka noqo siyaasiyiinta u dhaxee hana dhexgel halkaa markay marayso mustafa cagdar waa tuu booteerayey waa tuu lahaa jigjigaa laygu imaan alla ninku boota badana war maxay dhegta ugu sheegeenoo baas jigjigaa laygu imaanayaa مصطفى محوها نكيا أحمد شدارات دري مصطفى حلكنا حقنا اللي يقول مانيو هبننا الله توقري حتى الله يردي هرائيو هذا الكي ولا قدبي ولا توقري توين متقانا بابور تمرك الله توقرينيو سو دبل اللي قبل يا باشي سكر الله وقاد مصطفى عقدرو جيجا في جوجو او النقرير إيه والنحنون وكدعي يا لقليه كتربيل أدر جيجا اللي قدجي هذا الكي قرحنا يان كوا ميلها نعم ليو كوا قبيل ودلي او قبيلته هالكا عاودك كاغا قرنتاي واد ودا غرانيسا قبيلتي با هالكا كاغا ودا قرن واد ujeeday wad arkaysa waa ina hebel oo mustafayna adeerkiis waa ina hebel oo mustafayna adeerkiis isma kala qabtaan war ma dhahan waxa waa Soomaali war baashu marmar ha kala arto war ragga dhaxdhaxaada laga noqdo war baashu hatta Soomaalinimada la firi ma waa dir waa oramo waa kan waa niq awasaan waa kan cid idinka yeelayso iyo cid idinka dhagaysanayso male baawarkii awoodii aan ku faaraynay ee aan sheegaynay ee Axmed Shidaan idin sheegay maanta ma aragteen idinkoo wada jikane oo wada hoos fiirinayo intaad bari bulshada soo gasheen wafti uu away ila caddi anigu aan kariyad garay aniga Ibrahim Carabaan sameynaaw ee la digdiga looga yeeriyaa halka markay marayso guriga dawladda federaalku leedahay guriga geestiga loo yaqaano ee guriga Cabdi Maxamuud Umar uu deganaa yu house arrest ku yahay ninkii ahaa Mustafa Cagdar warkii u dambeeyay weey halkaas house arrest ku yahay inta shirka golaha fulinta ee xisbiga dimuqraadiga Soomaalida Itoobiya go'aan rasmi ay ka qaadanayso ama heshiis sax laga gaarayo Mustafa Cagdar house arrest ku jiraya jigjigana ku noqon maayo kicin maayo odayaal dambeeto kicin maayo shacab dambeeto kicin maayo ummadana isku diri maayo dhiiga ummadana la gali maayo haday kaaga macdahay iyo hadaad ka xumaan lahayd iyo hadaad ka fiicnaan lahayd adeer Itoobiya waa laba wajiile waligeed baan anigu kama baqo duqbilow ma cabso adeer kay keensato yay xirtaa soo Cabdi ninkan free dhahay darad soo meehan waa ka soo horjeed annagu Itoobiyaan baan soo muusan lahayn soo ultima maanta aniga soo ma doodaya maanta soo anigu askaru mihi maanta soo anigu tolo mihi maanta ninka u doodaya le war Cabdi siidaaya ku hayo soo duqbilow ma halka Itoobiya dhig xanaadaya magaalada Garowe magaalada boqortooyada dhulka uduga yanaadaya Itoobiyan maalmahan yar qabsatay wuxuu maskaxda naga haysto waan idin soo noqonaya Mustafa Cagdar house arrest ku jira ama ka farax ma kunax Garowe yanaadaya dhulka udug horta Garowe waxay xaqiijisay marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad iyo marka afraad ilaa marka tobnaad magaalada Garowe dhulka uduga waxay xaqiijisay inay u qalanto caasimadda ummadda Soomaaliyeed ama caasimadda dawladda federaalka in loo wareejin karo u qalanto Garowe waa la ciilayay Garowe waa la yasay Garowe waxaanan jirin baa laga sheegi jiray laakiin maanta magaalada Garowe waxay ifisay oo beesha caalamka u ifisay oo Mareykan iyo Yurub iyo Afrika iyo Australia iyo Asia laga daawanaya magaaladii uduga magaaladii boqortooyada boqorka daarood magaaladiisa bal hadalkayga aad u dhageysto garoonka ka dhisan magaalada Garowe intuu satellite qabanayay Soomaaliya waa garoonkii maanta ugu cajiibsanaa weeye waa garoonkii indhaha caalamka soo jiitay cadawga ummadda Soomaaliyeedna soo jiitay ee yiri Soomaaliya miyaa meeshan mise wadamada dariska weeye bal hadalkayga aad u dhageysto magaalada dadka Soomaalida iyo mucaaradkii lagu soo dhaweeyay muxaafadkii war magaalada ma Soomaaliya ku taala wiilasha faraha fudud baa laga rabaa inay qoraan oo yiraahdaan ha Soomaaliya ku taala waa magaalada sana cod dheer idin ku sheegay Garowe waxay ku taala Soomaaliya dhaxbartankeeday ku taala
قبل كنوال بيكوتالا والله دسي ولا لقوي هنو وحبرتي أو مقرنا سايا الجامعة ده وحكبرتو أن قرية قادنو قلن كقاتو يا دسي ويسو سمرين ويسو سيين اللي بنته اسمه يسن حاسدين اسمه حيران حبسنا اسمه جيان سيدا هذا قوة أن كشة كيري يسجاجوس بر هذا الكي قادو نبيش قروي مرصد هذه مرة فرات معارضي محافظة أما كان حما كفرح وهداي دودقش عاصمة الصومالية مستقبلك وهداي دودقش عاصمة مقدسية الصومالية مستقبلك ومقالة اللباد اللورية هرقيسي يك اسمايو ما قران كرا وحي الله هذا ساتلايتك وقبل الله هل كان مركي مريسو ما أنت مقالة دي وحا لغو سودوي مواطنين صومالية دو كلا دوان با لغو سودوي هاو ريو مدحوينها جبلان هاو ريو مدحوينها قلمدوك معارضك مدحوينياشي هوريتو ها si qurux badan oo sharaf leh lagu soo dhaweeyo barita laakiin reer garawow aadi dhageysta barita subax insha Allah haduu ilaahay yiraahdo waxa magaalada saan quruxdeeda uga sheekeynaya ku soo wajahan madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed meel walba ay degan tahay hadday jigjigan noqoto iyo hadday Jabuuti noqoto iyo hadday Gaaris noqoto iyo hadday noqoto magaraysaa Soomaaliya Somaliland madaxweynaheedii baa soo socda barita insha Allah ولا إسكور مريي عد والبومانتا سيخلدن وحو فسرتي أنغو حنا مسنهي أما أنغو أنا مسنهي إلي سوماليهين دول كودينو يهي دال كودينو يهي ليه ما يسيدي إنا مكو عبد الرحمن عبد الشكور إنا مكو سيديسي ليه ماينو كوران ماينو ولا شيغي ماينو إنا عاصمة هذا الله ديسا يقروا إيه سوماليا الله بريبير قريريو ليه ماينو مرتبا كتاي وحانا وشيغي إنا مكو مقالة waa magaalada هذه aabaha ba iskale hooyada ba iskale walaaliha ba iskale carruurtada iskale adiga iskale garawa waa magaaladaadi weey ku dalxiis tag meel walba tag cid ka xigta ma leh bari waxa laga yaabaa mustaqbalka garan mayna insha Allah haduu leeyahay soo dhawaantoodii si qurux badan bay u dhacday waa la soo wada dhaweeyay laakiin la mid noqon maayaan niyadana ha gishanina inuu farmaajo maalinta soo degteen uu soo dago dhici mayso maalinta duulaysaan inuu farmaajo duulo dhici mayso in ciidanka Bambayda ee Puntland ee duulduula salaanta ay madaxweynaha siin doonaan inaad la qaadataan dhici mayso hadalkayga aad u dhageysto madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo adeer kaasuu matala kursigii kaasuu ku fadhiya ummadda Soomaaliyeed shanta Soomaaliyeed meel walba ay joogto kursiga iskale heedii caalanka iskaleed asaa gacanta ku hayo dhici mayso in aad salaanta la qaadataan dhici mayso inaad magaranaysaa isku diyaarad aad soo raacdaan marnaba dhici mayso madaxweynaha Soomaaliya insha Allah berri buu ku soo wajahan yahay magaalada Garowe dhulka boqortooyada berri buu ku soo wajahan yahay reer Garowe iyo reer Puntland waadi dhageysta berri waa inaad banaanka u soo baxdaan وأنا على Soomaaliya qaadataan وأنا wadooyinka istaagtaan وأنا soo dhaweysaan madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed radiyallahu anhu mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo وأنا dhaas ku qabataa u koor yimaada weeye markaad magaciisa aad sheegaysi madaxweynaha وأنا dhaas ku qabataa وأنا aragtaa Soomaaliya dabaqyo ka dhisan وأنا aragtaa Soomaaliya oo laamiyadeedii la dhisay وأنا aragtaa Soomaaliya oo ciidan marayso وأنا aragtaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo radiyallahu anhu asagoo koor socdo وأنا daragtaawi fifa Soomaaliya gulis reer Garowe boqortooyo berri waxaan laga rabaa insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo madaxweynaha ayaa berri soo daganayo oo ku soo wajahan Garowe waxaan laga rabaa berrita insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo inaad banaanka soo istaagtaan in hooyooyinka soo baxaan in madaxweynaha sawirkiisa soo qaadataan in caalanka duqbulo wato marayda ka xun aniga baano maraykan dhex joogo cadaan dhex wareegaya iyo reer neeg dhex socdo iyo magaranaysaa ninkii Trump caalanka Soomaaliyeed waa ka bartaysan habeenka xagga ma sixdaa marka shaqada ka baxo xagga baan dhaca waka caalanka Soomaaliyeed buu idul surayeen jaclow ka gudubka qabiilka ka jaclow weynaysi ka ku fadhiyo weynaysi insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo Soomaaliya way guuleysanaysaa berrito la mid noqon maysaan mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la mid noqon maysaan kuwa maanta ku faraxsanaa soo dhaweynta amba waa idin kula faraxsanaa laakiin salaanta berrito uu qaadan doono mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo مدن محمد عبد الله فرماجو رضي الله عنه مدحوينها دلك الصومالية رئيس يا صومال بري سلانتا وبنبيدا كقادن دون عيدمada boodbooda reer Puntland la mid noqon maysaan
روق اللي دين دقنا الله دقي مايو أفر أضي بيدي سودا ويسوونونا أفر أضي إيا مسؤول كلا دورتا بيدي سودا ويم لكن بريتو وعذرا كد عيسو وعذرا كد عيسو بريتو إن شاء الله هدو إلهي يرادو مدحويني ومدى الله سودا ويليا إذا مبن بيبان لين كيستاغيو سومالي توسو اسكو تير سادايي هدبكينا تاقدراني تاقير وليقيني يالو قاضيا لمن نقون ميسيد رئيس كومده لمن نقون ميسيد أمير كومده ككو فكرو لمن نقون ميسيد سببتو هداد هورينا حلو هيسي واد كو فشلتي هداد هوري حلو هيسي واد كو فشلتي هداد هوري حلو هيسي أما بداد قلتي أما درس الشيء وحاويان وما ذكر كوش قيسري رئيس كومده مدحوين محمد عبد الله فرماجو رضي الله عنه بريبو كوسا وجهي ريقروا بريتا وانات بناك وصوب بحثان وين درسيسان إنه محمد عبد الله فرماجو وكتر يقروي إنه مدحوينها النقي هاي وين درسيسان إن شاء الله هدو إلهي راد قروي وحي كدعو وحاويا ما شاء الله ووحي مدى الصوماليات اي كفاني يسوي وحي قروي كدعي مانتا ووحي مدى كفاني دونتوي وحا عالم كتوسني إنه صومالي يسيسي إنه مدى يسوسو دويسي أي يسوسو دواتي أي عالم كاركن صوماليانا هاقول يستو صوماليانا هاي ساعدو معارض كسيدة خلدانو وفكرة يو والمعارض نمدا هذا وانكوه قلنا لكن ها اسكو داررنين هانا اسكو تاقين اسكو لمنها كدقين مدحوينها ومدو اي دورتي مدحوينها ومدو اي ربطو اسكو بداس كدقين هذه لكن شرفت هذه عزيقاقا ولا دوريا هل كاس بانك كتاقيا قروي halka baan kaga tagayaa garowe ma sha Allah wax qurux badan baa bari ka dhacdo waxaan aadayaa magaalada Addis Ababa saan horay bay ku sheegay ay xaaladda u socotay iyo u socotaa Mustafa Agdar labadii maalin iyo shalay intaan u qabtay intuu booteen karay uu boodboodi karay wuu boodbooday caawa ma ku sugan yahay Addis Ababa yes or no wuu ku sugan yahay xabsi guri ma ku jiraa yes حبس جوري مكدرة مدحونها كحيان كام كسيسمها مدحونها دولة ديان كالصومالية إثيوبيا حبس جوري مكدرة وكدرة أي رحمة شده صومالي وي أذكو أننا نمنع سينكرت الموادن كالصومالية كانت دقيسان مينو أضو إن هذير كالدفاعيو أما أضو إن هذير كالدفاعيو كانت دقيسان مينو موادن كالصومالية إن نعنى عنو ونراهن صومالي ما وصومالي بيوري ويان ولانديرا صومالي بيوري قبيل كيسانا ودير كياه الصومالي ويان در يا دارو سكو كميد ويانيو نعم مايا كان هوريمان مايا أدو كرسيغا ربو أدو ربا كرسيغا إنا أنو كور دايسانو أو كور على دعي ميش وانا لو كلا باور وين هاي ميش هادر معانا ليستوس نكا حنيها وين يعني نكا حنيها ير ليستوس هادر معانا مصطفى عقدر انتو جيجا قلي والرقا أنا ويا قدالك قلي سومو سنر ها إحنا شذا هاي ماذا جيجا هاي ماذا أدر برورت هذه أو هنت هذا وان داورين حبس جوري جالس حبس يا كوجيكو حدان كادا ويان هراي كوجيري أذا جاي بيشان ولا جوشي وذا ولا جو عقابي وردي مذيذا هذا ودي بتي سوفيادي بالحرية ورسوس السنة والجميع هذه دقيست حسوق بايدن كوا حسوق بايدن كالسعودة ديجانا ذا إثيوبيا أنا رنت أسرالي كما وأنا السنة والجميع يوضياش السوفيادة كع أنا أدخل بايدن كتر سنة حرتي نكمل ذا كع أورنا حرق النجد دايد صرت أنا قرحني فشلني رنت لكشجن أحمد شذا ولانديرة دلي وبنان كادجيوي أودي سنة ميسك صارت chicken بوكادجي نينكي لورنية مستفعت chicken legs بوكادجي حتى chicken breast ما chicken legs لحقته أولي بقى عيل chicken legs كمركاد جوستيد صار عيل كومسي هاي أنا لقطة سي لفتينا يكون جوسمج إلا chicken breast تيجا هالمرباط جوسريسا وأنا كعيل بحيسا لكن chicken legs أنا كوسي دقن يدنعك اللفتي كوجريسا يا لفتي ولا سيفير يا توريسا مصطفى عجر chicken legs بها ولي مصطفى انتو دور درتي يولفت حبش كوسي توري هذه
قولي يا قبل نمان كله يا أحمد شدو لان ديرات هاي سومالي بكو قرب تاجن أنا قرب جوج بكو قرب تاجن دير لجو حقلين مايو دير هانا لجو نعم مايو أورمات هاي لجو نعم مايو سومالي بات هاي كرديني مصطفى حسبي قوته كديني إن أنتي قبيل لجو شبان أي رهدان دقبلوا نع أو قال لكم دير كاكاد ديك مريض محاكن أير عبدي بديك هدان لهين عبدي بواد حرتين عبدي بيتاد حرتين ديك مرهين مياه مركاد عادية كمصطفى وما أنت داهب كديك يو الله ده إن مصطفى ميانا ديك لهين مركاد عبدي حريسي إن إيلاني الله ورويلكو حتى حلكها كقاطانة ميدايان أو فرح كقاذان إيه قصليسي إيه الله هيد ودنبيله دتكو حسكنا ودنبيله لفيه يا ميدتكي وصاقرتي ميدتكي يا لفيه ولا صابحي لفيه ومقرساي قبريادي بقى لقى كري لايهاي ما تدي دمتاي بقى لقى كري لاي اسكدا عبد كوانا نول بكونا قراي أديك كوي دمتاي بقى لقى كري لايهاي ميدتكي وجوانا كبوحشدي لفيه حقوق اندونا مصطفى لفيه حقيت جيد دون تاينا ديرو معانا إلا إن ميدتكي صاقرتي لفيه صاقرتي ميلاد جيري سان قرن الله لا صادول إتكا قدن دون تمره kuwaan ogahay horey u haysteen lafaha aadiyad war halka markay marash adeer dhiigu biyo maaha dhiigu baraambar maaha dhiigu maaha biyo iyo subag maaha markaad cabdi xirayseen ee aad damaashaadayseen ee aad boodboodayseen ee aad ciyaarayseen ee aad lahaydeen waa tuug ee annagu aan la war wiilku waa wiilkiinni war wiilku waa wiil ogaadeene warwiilku waa wiil absamee warwiilku waa wiil daaroode warwiilka ka daaya war waan dabahadiseen war madaxweyne daarood in la xiro ma ahayn war madaxweynaha daarood yaan la xirin war intaasu sharaf idiin galay ha sameynina aan idinku lahayn gooskaad ka qoslayseen waxaad lahaydeen cabdi waa tuug baad dhayseen cabdi waa khaayin baad dhayseen haddana annaga idin leh dastuurkaa lagu haystaa mustafa waxaa laga dhigay chicken legs baa laga dhigay أحمد سيدا ويري فرتا لوغو يري فرتا كالي با لوغو يري جيجيغو وحبسي غوري كجرا انتا كوسي رفن مايا مسؤولكا آديات هاday wada ooyaan haday wada dhawaaqayaan adeer lagu kala baxmeesh madaxweynaha soo socdo yaan la sii dardaarmaya madaxweynaha cusub ee dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya yaan hadda la sii dardaarmaya waxaan leeyahay madaxweyne ummadan waad aragtay labada nin iskaga dambeysay heerka ay wax gaarsiiyeen waad aragtay madaxweyne waxaan halkan fariin ku soo marnay waan ku taageeri doonaa lugahan iyo cadkan dheer duqbilow kugu taageeri doonaa ummadda isu soo dhaweey ummadda ha isciil badin sidii dhacday oo kale ay dhicin yaan heegal la isku bursanin yaan ubal la isku bursanin yaana wax kale la isku bursanin madaxweyne waxaad samaysaa ummadda isu soo dhaweey kaalaya dheh dib u heshiisiin dhaxdhig walaala ka dhig isukana waxaad tiraahdaa madaxweyne wixii hore way dhaceen inna la bursan maayo siyaasadaadana ha noqoto mid public ah yeesan noqon mid hoos ha noqoto yeesan noqon sida Mustafa oo xanaaqay inaad dad xirxirtid inaad gabdho dishid inaad lafa iyo meed soo guratay yeesan dhicin madaxweyne waxaad samaysaa dardaaran baan ku soo diraya halkan waad u jeedaa Mustafa alla jaaniska u helay waan ka sii bixi rabay waan bixi rabo bareegi bay dhamaaday bal dhageysta alla Mustafa iyo inta la socoto jaaniska ay heleen qurux badnaa fursadda ay heleen qurux badnaa shacabka say ugu heelanaayeen say u garab taagnaan sidii u garab taagnayn ala qurux badneeda uu isku xaaray kaameer u qaatay cabdi halkan buu seexan jiray xaggan buu naagta ku qabay xaggan baa jikadiisa cunto lagu karnay xaggan buu istaagi jiray aan istaago wallaahi ba wax duwan way meeshan buu cabdi istaagi jiray aan istaago حقابو كقحوان جري أنا استاجو حقابو فريسان جري أنا استاجو عبد السامبو فريسان جري أنا فريستو حقابو استاجو جري أنا استاجو هيجو لا مرة مدحوين عرقتي وحي دعي مدحوينها صوص على الله الله مدحوين ومدن السكن isjeclaysi diriya daarood ha u kala qaadin isukana waxa tiraadaan kuwii hore meeshay mareen mar rabna inaan marno argoosina kuma jirno cidnana bursan mayno deegaanka waa loo wada dhashay nin walba iyo aqoontiisa nin walba iyo waxbarashadiisa nin walba iyo qoraalka uu qoro nin walba iyo maskaxdiisa iyo aqligiisa yaan ku socodsiinaynaa xafiiskan ninkii u qalmo yaan siinaynaa qabaylada sida wax u kala qaataan yaan u deeqsiinayaa hor baa loo soconi kii hore wuxuu sameeyay